قبل إذا كيك كنت حركت ذي السهر وقبل صوياتي أين كلنا نبي قسمة الشوضة وبيها بمنوق قبل إذا كيك كنت حركت ذي السهر وقبل waxaan wada gurigeeda ku soo booqday gurigii Muqdisho ka joogta fanaanadeeda kale marka labadeena aragtaan waxaan soo xasuusanaysaa heesta NN soo dhaw waa dhawahay abwankayga dhulkaaga aada ugu mahadsantahay sida sharafta leh aad ugu soo booqatay meesha markaan ku suganahay guriga xaafadda sidoo kale adigana soo dhawow abwaankan marna walaalkaya waa abwaan igu qaaliya sameeyay heesahayga hees ka mid ah heesta NN oo ugu dambeysay heesahayga single-ka ah soo baxay marka abwaan bal heestaas dad badan ay soo weydiiyey oo marka ay dhahay heesta maxay u socotaa ereyga de kule ninkii keenay baa tahay kule horena kula sheergareey heesku waxay ka hadlaysaa qisada markaan ka hadlo gabadh bay ku dhacday Hargeysa joogto aad baan u salaamayaa salaamina marka qisada gabadhay ku dhacday wiilay muddo jecleed oo muddo isjeclaayeen muddo waxaan rajeynayaa 4 sano inay tahay say u sheegtay wiilkii markay kulmeen oo wada kulmeen maalintii isku yimaadeen beeliweed oo warkiisa ay u sheegtay qisadana waxay iga sheekaysay gabadhay ku dhacday sax markay isku yimaadeen wiilka la hadlay ay fiican tahay NN bal iyo wanaagsan NN mooyee waad garanaysaa inay qof hadalkii rabo inuu sheego dhihilaana sax kulay heeskana gabadha laxanka saaratay bal ma soo xisi kartaa dadka kulay de mar haday tahay qisadaba oo dhacday kulay waxaan dareemayaa sida gabadhaas ay uga soo baxday ayaan anigana u dareemay marka ragaba idilkii kan keete aragtidiisa anoo qabay sooyaantii aynu kulane eebayigu simay xishoodawgii hambad ma noqon henen mooye soo dhahdi afka muu gabin kula xaan filayaa waa la wada garanaya intaa ka badan sibadanee ashqaraari ama kaaga wana soo oo inta sanaysta ugu jecelahay ana intaan ugu jecelahay saad u leedahay marka soo dhaw magaaladaada waa mahadsantahay mar kale kullu wasoo joogna insha Allah wid ma inoo madalay showga insha Allah bismillah aad baan idin salaaminaa sidoo kale en moye soo dhahdi afka muu gabin